الحديث الخامس حديث كان شنات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حديث كان وحالك ورنا يا أنس رضي الله عنه وارضاه وأنا خادمك النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري جاء وحا إماضي 3 رهط سدح كوح يا إماتي إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم xaaskiisa guriyashooda ay imaadeen 3 koox ama 3 group isla socda ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam guriyashiisa imaadeen yasaluuna xaala ay weydiinayaan can cibaadati nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam cibaadadiisa xageeda ay weydiinayeen falamma ukhbiru markii loo sheegay oo la waramay kaanahum waxaad moodaa taqaalu inay yareysteen cibaadadii loo sheegay inay yareysteen ayaad moodaa فقالوا وحي رادي مركة أين حقيبا نحن أنك أحاني ومن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حقيس حقين كأحاني يعني أنك حقين كتشوقنا نبي صلى الله عليه وسلم أي دهين صابتا وحي تهي قد غفر الله سبحانه وتعالى وأضافي له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وحي حرمري من ذنبه أو ذنبه سأ iyo wama ta'akhara wixii dib dhacayba nabiga kaleey salaatu wasalaam dambigiisa kii hore iyo kii dambaba waa loo dhaafay marka anaga nabiga kaleey salaatu wasalaam xageen ka joognaa weey oo nabiga dambigiisa dhan waa loo dhaafay qaala ahaduhum midkood wuxuu dhahay marka amma anigu soo maahan fa inni anigu usalli waan tukanaya al-layla habeenkii abadan wiligayba habeenkii waan tukanaya oo waan soo jeedaa marna ma seexnay weey وقال الآخر متك كالوحو لهي أنا أنيقنا أصوم وانصومايا الدهر زمنك كل جيسة وقتك دمانتيس وانصومايا مرور وانصومنانا أنيقنا ولا أفطر منا أفرايا وقال الآخر متك كالوحو لهي متك سدحادوي أنا أنيقنا أعتزل وانكفقانايا النساء الدمرك فلا أتزوج مقرسنايا أبدا وليقيب مرنا قرسمايا دمر لوان اسكيل علينا فجاء وحا إماضي انت اسكدب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يا إماضي فقال مركز حويري أنتم إذنك ميا الذين كبي قلتم لهي كذا وكذا سداس إذنك الصومان كبر لهي سداس ومحول جيدا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حضر كان لصو ضعفي وأنصور شيني كبر لهي إذنك الصومان إذنك ما لحظين سدان أما ورهوي والله إلهي سبحانه وتعالى ينقل أرتي إني أنيقو لأخشاكم كان إذنكو عبس بدني أنهاي لله الله سبحانه وتعالى وأتقاكم يوكن إذنكو دورسون بدن له الله سبحانه وتعالى لكني هسي هاتي أنيقو أصوم وانصومايا وأفطر وانا أفرايا وأصلي وانتكنايا وأرقد وانا سيحنايا وانشيفنايا وأتزوج وانقرسنايا النساء دمركا فمن رغب قفكي نعمرك عن سنتي طريقي دي وجدكيد فليس مني إقامد معهان مركا حديث كان وحونا برايا والنبي عليه الصلاة والسلام لقورنا ايو أنس بن مالك وحولي حي رضي الله عنه وارضاه نبي صلى الله عليه وسلم قرقي سيا وحا إماضي 3 كوحا يا إماتي أما 3 قف أما 3 جروب حارب طلع مركا كدب وحي ويديان نبي عليه الصلاة والسلام عبادي سي ويديان guriyaashii nabiga sallallahu alayhi wasallam intay imaadeen ay waxay bilaabeen inay weydiiyaan nabiga alayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa waxayna weydiinaan xaasaska weey markii loo sheegay oo la waramay oo leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaan ayuu qabtaa markaas way yareysteen wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam uu qabto ulama jeeda meeshan yareysay yasma ahaan oo nabiga alayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa inay wax ka sheegayaan inay yeesayaan inay waxba aysan aan taas ma ahan taas waa gaalnimo weey nabiga kaleey salaatu wasalaam cibaadadiis qofkii wax ka sheego ama daleeceeyo qofkaas diinta uu ka baxaya gaal iyo noqonaya asaas loolama jeedo laakiin saxaabadan yareysigooda wuxuu yahay yani ayaga sheegay waxay leeyihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam dambigiisa hore iyo kii dambe loo dhaafay cibaadadan intan uu sameeyna nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku filan tahay ama anagu يعني دنبيغين كي هوري كي دنب لما ضعفين marka intan yar hadaan sameeyno nama deeqayso meeshas ay ka duulayaan oo dembigooda iyo macaasidooda ay og yihiin iyo cibaadadan oo sida u yar tahay oo inaysan deeqin ay ka duulayaan
nabiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiis waxba kama sheegayaan, mana daleecinayaan, mana yasayaan. taas diinka bax weeye. ayagaa shay waxay leeyihiin ayna naxnu min annabiy sala allahu calayhi wasalam, anaga markii loo fiiriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggeen ka joognaa? sababta maxay tahay? qad gafara allaahu lahu maa taqadama min dembi wamaa ta'ahar. nabiga calayhi salaatu wasalaam dembigiisii kii hore iyo kii dambeba allah subxaanahu watacaala ayaa u dhaafay, waxba looma haysto. acmaashan uu qabanayo waa dheeri, wax buu kororsanayaa. marka anaga dembigeena kii hore iyo kii dambe lama dhaafin. intaa yar haddaan qabano mabana deeqaysaba, oo dadaal dheeraad ah la imaano wey. saasay ka duulaan, marka saasay ula jeedaan. intaas kadib midkood wuxuu yidhi anigu habeenkii dhan waan tukanayaa, oo habeenkii dhan salaadan uu istaagnaanaya, weligeyna ma seexanayo. midkii labaadna wuxuu yidhi aniguna zamanka iyo waqtiga dhammaan waan soomaya, waqtiga dhammaantiis waan soomanaanaya, mana afuraayo, weligeyna ma afuraayo. midka saddexaad wuxuu yidhi aniguna dumarka dhan waan ka fogaanaya, oo weligeyna ma guursanayo. intaas kadib nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa imaaday, markaasuu weydiye, wuxuu ku yidhi idinka maa dhahay sidaan iyo sidaan? nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu hubsanayaa, horta inuu hubsado wey. kadib way u sheegay, waxay ku yidhahdeen haa rasuulka ilahi, anagaa dhehnay. intaas kadib nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war hooy baraaruga, aniga ilaahay aan ku dhaartee waxaan ahay kan idinkuga cabsi badan allah subxaanahu watacaala, haddana kan ugu dhoorsanaan badan allah subxaanahu watacaala. laakiin saas ay tahay anigu waan soomayaa, waana afurayaa, waan tukanayaa, waana seexanayaa, waana guursanayaa dumarka wey. qofkii sunnadeenacana iga mid ma ahan. faman raqiba an sunnatii falaysa minii. sababto ah nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiis waxay tahay inuu soomo oo haddana uu afuro, sidoo kale inuu habeenkii uu tukado, qeyb ka midna uu seexdo, sidoo kale dumarka inuu guursado nabiga calayhi salaatu wasalaam. taasaa jidkiisa saxda ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo jideeyey. saxaabadan waxay doonayaan wanaag iyo kheyr inay kororsadaan, ziyaasan ay doonayaan, laakiin waxay khilaafayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa. qofka muslimkan waxaa la doonayaa nabigiisa calayhi salaatu wasalaam jidkiisa iyo sunnadiisa inuu qaado wey. hadduu khilaafo oo dhinaca marana kaas camalkiisa waa lagu soo celinayaa. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun wey, waa lagu celinayaa. marka qofka muslimka waxaa la doonayaa sunnada nabigiisa sala allahu calayhi wasalam inuu ku dadaalo.